السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Daalaan News Channel. daawadeel meel kasta joogtiin waxaan idin leenahay kula wanaagsan. xubintiin dhacdooyinka la yaabka waxaynu ku soo qaadanaynaa shirkadda diyaaradaha Qantas ee dalka Australia oo sameyn doonta duulimaadka ugu horeeya tooska ee magaalooyinka Sydney iyo New York. shirkadda diyaaradaha Qantas ayaa sheegtay inay isku diyaarisay safar tijaabo ah kaasi oo ay shalay bilowday iyadoo diyaaradoosina ay bilaa joogsi non stop ay hawada ku jiri doonto muddo 20 saacadood iyadoo jari doonta masaafo dhan 16,000 oo kilomitir. diyaaradaasi oo nooceedu yahay Boeing 7879 ayaana la sheegay inay shalay oo Jimco ahayd bilowday duulimaadka tijaabada oo ay kaga soo baxday magaalada New York. waxaana la filayaa inay maalinta Axadda soo cagdhigato garoonka magaalada Sydney ee dalkaasi Australia. duulimaadkaasi ayaa la sheegay in lagu tijaabin doono dareenka maskaxeed iyo jir ahaan ee rakaabka iyo diyaaradda ee xadidan. cilmi baarayaal la socda diyaaradaasi ayaa waxay iyaguna eegi doonaan dhibaatada soo gaari karta 40 qof ee rakaabka ee la socda safarkaasi kuwaasi oo badankooda ah shaqaalaha shirkadda diyaaradda Qantas. diyaaradaasi oo nooca loo yaqaan Dreamliner waxay isticmaali doontaa shidaal ku filan duulimaadkeeda kaasi oo la sheegay inuu dhanyahay 101 tan oo lagu shubi doono labada haan ee diyaaradda ku rakiban. duuliyaha ama kabtanka diyaaradaasi oo lagu magacaabo Shane Golding waxa uu sheegay in diyaaradaasi soo cagdhigi doonto garoonka magaalada Sydney 9 daqiiqo oo uu shidaal ku harsan yahay haamaha shidaalka ee diyaaradaasi. saynisyahanno ka kala socda laba jaamacad oo ku taala Australia ayaa raacay diyaaradaasi iyagoo kurgalaya jiibka rakaabka isticmaalka cuntada iyo xaaladaha kale ee inta ay hawada ku jiraan. duuliyaasha diyaaradaasi ayaa iyagana waxaa lagu rakibay ama ay labisteen qalab la socon doona mawjadaha maskaxdooda iyo feejignaantooda. shirkadda Qantas waxay kaloo sheegtay inay bilaan soo socda bilaabi doonaan duulimaad toos ah oo ay ku kala gooshi doonaan magaalooyinka Sydney iyo London. si kastaba haatee safarka shirkadda Qantas ee magaalooyinka New York iyo Sydney maakii ugu dheeraa caalamka iyadoo ay haatan hoggaanka hayso shirkadda diyaaradaha ee Singapore Airways ee duulimaadka magaalooyinka Singapore ilaa New York iskaga kala gooshtay muddo dhan 8 saacadood iyo 30 daqiiqo. ogaanshaha labada magaalo Singapore iyo New York ayaa waxaa la sheegay inay masaafo ahaan isku jiraan 15,340 iyo 349 kilomitir. daawadeel xubinteeni la yaabka waa nagintaa. halkan waa Daalaan News Channel waana ku mahadsantiin daawashadiin.